1976 Steve Wozniak wuxuu sameeyay aalad kombiyuutar waxa uu u tusay Steve Jobs. Isla markii uu arkay Steve, waa uu shoogay. Waxa uu dhahay, "Waa inaynu gadnaa kombiyuutarada." Waxaan go'aansaday inay aasaasaan shirkad, waxayna ka aasaaseen garaash ku yaala guriga Steve Jobs. Jobs wuxuu ku fiicnaa fikradaha suuq-geynta iyo gadida alaabta. Wozniak wuu ka farsamo fiicnaa, waxa uu ahaa qofka sameeyay kombiyuutarada, waxaana loo bixiyay aaladii ugu horeysay sameeyeen Apple I. waxa uuna soo geliyay dakhli fiican oo u suurtagelisay inay ku dhawaaqaan qayb kale oo isaga la mid ah, waxayna u bixiyeen magaca Apple II. waxa uuna helay taageero sanadkii 1977 $1,300. Apple II wuxuu sameeyay dakhli waali ah ka dhigtay shirkadda Apple inkastoo ay suuqa joogtay 1 sano, mid ka mid ah libaaxyada. Intaasi kadib, magaca Apple waxaa raadiyay ganacsatada waaweyn, waxayna bilaabeen inay isku dagaalaan sida ay u lahaayeen qayb ka mid ah shirkadda, balse guulaha ma aysan sii socon. 1980 Apple waxay soo saareen Apple III, 1983 Apple Lisa, balse labadoodu waa ay khasaareen. Steve waxa uu arkay si ay Apple ugu guuleysato in loo baahan yahay horumarinta kombiyuutarada in ka badan maamulada shirkadda. Wuxuu u soo bandhigay dadka la shaqeynayay in loo baahan yahay in la helo agaasimo fulin cusub shirkadda Apple. wuxuuna sameeyay liis ka kooban 20 qof. In badan oo interview kadib waxay ku fadhiisteen John Skill, agaasimaha fulinta shirkadda Pepsi. Waxauna dhahay oraah ka mid ah oraayada ugu caansan caalamka. Do you want to sell sugar water for the rest of your life, or do you want to come with me and change the world? Oraahdaasi waxay taabatay dareemaha Skill. Run ahaantii, April 1983 Skill wuxuu noqday agaasimaha fulinta shirkadda Apple. waxaa dhacay waxaysan dadkana filayeen. Kadib Skill markuu qabsaday shirkadda Apple 1983 ilaa 1985, waxaa jiray dhibaatooyin badan oo ka dhacay gudaha shirkadda. Sababteeda asaasiga ah waa Jobs iyo Skill inay isku maskax ahayn. Apple II wuxuu ahaa soo saarka soo geliyay shirkadda lacag, wuxuuna ahaa kan ka dhigay shirkadda mid aan hoos u dhicin. Skill iyo golaha maamulka waxay rabeen inay xiiseeyaan oo lacag ku bixiyaan xayeysiimihiisa halka Jobs uu rabay inuu la xiiseeyo lacagaha xayeysiimahana lagu bixiyo soo saar cusub oo lagu magacaabo Mac. Jobs wuxuu arkay inuu sameyn doono bootin caalamka kombiyuutarada. Jobs wuxuu rabay inuu ku suuq geeyo $2,000, halka Skill iyo golaha maamulka rabeen $2,500. mar kale waxaa khasaaray soo saarka Jobs ee Mac. xaaladda shirkaddana way sii xumaatay. Steve wuxuu doonayay inuu biibiyo booska Skill. Skill wuu ogaaday, wuuna ku fahmay, waana ugu hormaray. wuxuu isku keenay golaha maamulka, wuxuuna sameeyay codeyn lagu eriyayo Jobs shirkadda. waana dhacday 16 Sebtembar 1985. Jobs wuxuu ka tagay Apple, wuxuuna gaday gebi saamiyadii uu ku lahaa shirkadda, taasoo waagaas dhammayd $140 milyan. ما سوق horta xir dadka burna iska leeyihiin soo saamiyadiisu joogaan $140 milyan iyo waxtaas shirkadda Apple assistant iska leeyahay. haddii aysan sheekada kugu socnay ilaa hadda, anaa ku fahansiinay. Steve Jobs wuxuu sameeyay shirkadda Apple asagana la yiraahdo Steve Wozniak. Okay. Kadib sida shirkad kastoo adduunka la mid ah markay manaato waxay sameynaysaa wax la yiraahdo scaling, isbalaarin. waxay doonaysaa inay sameyso warshad ka weyn warshadii sameyso shaqaale badan ayadoon ilaa hadda lacag badan ka soo galaynin. markaas maxaa sameynaysaa? waxaad raadinaysaa lamaane oo qaadanaya qayb ka mid ah shirkadda, kaasoo ku siinaya qayb lacag go'an. lacagtaas markaad qaadato showga socdaal ma ku tagaysid. waxaad ku bixinaysaa warshado ayaad ku sameynaysaa, dad badan ayaa ku shaqaaleysiinaysaa iyo wixii la mid ah.
markastoo aad u baahato inaad isbalaariso waxaad sameynaysaa sidaas hal sidaad ugu socoto waxaad arkaysaa inaa maamuleynin shirkadaadoo dhan tusaale ahaan Elon Musk oo ah ninka ugu taajirsan caalamka wuxuu haystaa 22.5 bis saamiyada shirkadda Tesla iyo Jeff Bezos wuxuu haystaa 10% saamiyada shirkadda Amazon sidaas awgeed 10% oo goyso malaayiin dollar waxay ka fiicanta 100% oo aan goonin xabad sanbus ah okay sidaas awgeed Steve Jobs wuxuu haystay 12% shirkadda Apple oo wagaas dhimid 140 milyan oo dollar marka shirkadda Apple markii laga soo buriyay shirkadda Apple Steve Jobs ka fadhiisan lacagtan showga socdaan ku aadan wuxuu go'aansaday inuu sameeyo shirkad cusub oo sameeysa kombiyuutarada shirkad cusub oo lagu magacaabo Next shirkadaas oo sameeyso kombiyuutar kaalmeeya businesska intaas bas muu sameeyo Steve Jobs wuxuu u tagay cadowgiisa ugu xumaayay ebed isbarteen Bill Gates wuxuuna dhahay waxaan rabaa inaad ii sameyso software aaladayga balse Bill Gates wuu ka diiday wuxuuna xujo ka dhigtay in aaladiisa aysan xawaaro ku filan aysan haysan Steve wuxuu eegayay shirkad ula dhacay siday filmaanta u soo saarto shirkadda Pixel oo sameysay filmaanta Star Wars wuxuu go'aansaday inuu gato 70% saamiyada shirkadda oo qiimaheedu waagaas dhamay 10 milyan oo dollar wuxuu noqday agaasimaha fulinta shirkadda Pixel intaas ma uu ku ekay maya Steve markii meeshaan joogo way u kala kacday shirkad sameeysa kombiyuutarada iyo shirkad sameeysa aflaanta maasha Allah tabaaraka raxmaan kadib wuxuu sameeyay filim u noqonaya xaysiin kombiyuutaradiisa meeshaas markii la joogo waxaa bilowday guulaha shirkadda Pixel heer uu geliyay Steve Jobs 50 milyan oo dollar taasoo dhameyd kalbar hantidiisa waagaas 1995 waxaa soo baxay filim adduunkoon jijibiyay waa asiga filimka Toy Story filimkaas wuxuu guuleystay wuxuuna soo geliyay shirkadda Pixel 362 milyan oo dollar markii Pixel guulaheedu xaqiijinaysay la jecleeyay Steve Jobs way isu dumaysay sababtoo ah Bill Gates ayaa soo saaray Windows 95 kaasoo saamiyada Apple hoos u dhigtay 4 meel ta qiimaheeda saxda ah waxaan imaaday Steve Jobs si uu u soo celiyay shirkadda 12 sano kadib Steve Jobs oo ka tagay garoomada Apple laakiin wuxuu ku soo laabtay intaas oo kaliya maahan waxa uu horeysay sameeyay qashinka ayuu tuuray Steve wuxuu tuuray mashaariicda ay sameeyay jirtay shirkadda Apple oo ay ku guuldareysan jirtay sababtoo ah xaaladda Apple maytan u sii adkeysan karin wuxuuna xooga saaray shaqaalayaasha firfircoon saamiyadooda shirkadda uu ku xoojiyay dadka oo dhanna way ku faraxsanaayeen wax soo saarkana sidiisa ayuu socday waqti badan kama soo wareeganin xiluu Steve Jobs soo galay garoomada Apple wuxuuna dhaliyay goolkiisii u horeeyay xilligaas waxaa lagu kacsanaan jiray heesaha iyo muusikada meeshaas oo dhan ayuu suuqa jiray wuxuu yiri mayno Apple kabtaas u gelino dhabtii waa uu sameeyay wuxuu soo saaray iPod oo aadamahoonan ka yaabiyay sanadii 2005 wuxuuna gaday 2 milyan oo alaab intaas miyuu ku ekay brothers ilaa wili waxaan dhiban wuxuu sameeyay wax kale oo leeyahay adiga ayaa ku soo xasuustay Steve Jobs wuxuu sameeyay waxa kaliya hadda aadamuhu ku faano iPhone Steve wuxuu arkay in botamada ama godadka mobilada ku yaala inaysan waxba u tarin dadka isticmaala mobilada oo hadii ay meesha laga qaado uu noqonayo macaamilka mid ku qanacsan waxaasi wuxuuna sameeyay oo noqotay waxa kaliya hadda ka taqaan Steve Jobs wuxuu sameeyay balse Steve intuu waxa soo sameynayay wuxuu ka tagay wax uu muhiimsan nolosha qoyskiisa Steve wuxuu dhalay gabar intuusan dhiman ka hor wuxuu la joogi jiray gabadhiisa si uusan u dareemin kelinimada nolosha inuu maal daba ordo
balse 5 Oktoobar 2011 Steve Jobs waa uu dhintay. insha Allah ina muuqaal ka wada bogateen rajeynaya. haddii aad rabtaan in qof kale nagu soo daro comment igu soo qara qof kale oo caan oo la kasaayo. subscribe noo saara like noogu dara haddaad ka heshay muuqaalka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.